السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وبعد، والله الصوماليين meel walbo aad joogtaan Allah idin badbaadiyo, Allah idin dhowro. halka aan maanta idin kala soo hadlayaa waa dowlad goboleedka Jubbaland, caasimadiisa magaalada Kismaayo kaafiso. ilaahay waxaan ka baryayaa Allah ka yeelo magaaladan magaalo cilmigeeda ku kaafisa shacabkeeda, khayraadkeeda ku kaafisa shacabkeeda, amnigeeda iyo amaankeeda ku kaafisa shacabkeeda, adduunyo mid kaafisa, aakhirana kaafisa. Kismaayo kaafiso ayaan idin kala soo hadlayaa maanta oo aan dhawaan runtii ku imid booqasho. mawduuca aan doonayo inaan halkan idin kaga soo gudbiyo waa dacuuha fa inaha muntina. daaya, ka taga, ka fogaada, waa wax qurmoon oo uraye. talo waa maxay waxa laga fogaanayaa? waa maxay waxa la isaga digayaa? ha laga dheeraado la leeyahay waa maxay? yaase dhahaya walaalayaal, sidaad ogsoon tihiin waxaa jira cudur ina wada hayo idaylkeen, cudur aynu la ildarannahay, cudur ina kala geeyey, cudur in badanoo dadkeenii ah xabaalgeliyey, cudur idaylkeen ina wada haya. u kaale xabiibka sala allahu calayhi wasalam wuxuu maanta daweynayaa, horena wuxuu usoo daweeyey oo uu maantana daweyna doonaa ilaa qiyaami saaca. cudurkan u kaalaya daawadiisii. cudurku waa qabyaaladu waa qurun. aniga ma dhihina, xabiibkaa yihi sala allahu calayhi wasalam dacuuha fa inaha muntina. walaalayaal, waad ogsoontihiin heerka maanta aynu taagannahay ee qabiilku ina joojiyey. halkuu qabiil ina keenay waad garanaysaan. yah, dadkii waxa kala geeyey waa qabiil, kala irdhayey waa qabiil, kala fogeeyey waa qabiil, la isugu uurxun yahay waa qabiil. qabiil baa miisaan noo noqday, qiyaas noo noqday. haddaynu wax dhisanayno, wax qaybsanayno, wax baranayno, wax sadaqaynayno, qabyaalad ayaa qiyaas noo noqotay. waxa loo baahan yahayna ma aha, waa camalu shaytaan iyo ficil jaahili ah weeyaan. ilaahayna wuu inaga kaafiyey, laakiin weli faraqaanu haysanaa. aan mawduucayga hore u galo. waa ka uu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala, yaa ayuha annaas inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum. eeg dad yahow, waxaanu idinka abuurnay lab iyo dhadig xaggii. aabba la yidhaahda aadam iyo hooyo la yidhaahda xawaa ayaan idinka abuuro, aan idinka sameeyey. kadibna markaad badateen shucuub iyo waxaanu idinka yeelay qabaa'il. hadalkaa aad u dhegeyso. qabaa'ilka aad tihiin idinka ma aha, aabbayaalkiina idinkama yeelin. allah dhahaya wajacalnaakum, adiga, gabadhaadan, wiilkaagan, odaygaagan, intiina addoommadii allow, allah idin dhahaya wajacalnaakum, waxaanu idinka yeelay shucuuban wa qabaa'il. qabaa'ilku waa rag ku abtirsada aabbo ayaa qabaa'il ah. marka la batona oo qabiilku bato, qabaa'ilo fara badan shucuub bay noqonayaan, waa qaran. markaa annagaa idinka yeelay, wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'il. laakiin maxaanu shucuub iyo qabaa'il aanu idinkaga yeelay markaanu idin abuurnay? litacaarafuu, in aad isgarataan oo aad is aqoonsataan, in xigto iyo qaraabo la noqdo, raxim in la yeesho ayaanu idinkaga yeelay shucuub iyo qabaa'il. soo qabiilku ceeb ma aha, qabiilku ceeb ma aha, qabiilku waa ceebka saliim. qabiilka waxaa laisku guubaabiyey in la barto, laisku dhiirigeliyey in ubadkeena aynu barno. waa ka uu dhahaya xabiibka xadiid saxiixa sala allahu calayhi wasalam, tacalamuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum. ansaabtiina
waxaad ka barataan qabaa'ilkiina inta aad kaga xiriirinaysaan ehelkiina iyo xigtadiini qaraabadiini raximkiina intaad kaga xiriirinaysaan idinkuna barta awlaadiinana bara maxaa yeelay waxaa ku xiran in qabiilkeenna aynu baranno oo weliba aan baranno inta ehelka lagaga xiriirinayo waxaa ku xiran jannadeeni baa ilaahay ku xiray waa ku dhahayo laa xabiibka sala allahu calayhi wasalam ha hilmaamina ku salli xabiibkaaga sidaa wax kuu baraya kuugu caddaynaya waddadaadii liibaanta waa ku dhahayo laa yadkhulu ljannata qaaticu nin raximkiisii gooyey xigtadiisii hoose gooyey qaraabadiisii gooyey marnaba ma gelayo janno xataa ma orinayo janno so inaan barana qabiilkeeni maxaa ku xiran jannadeeniyaa ku xiran laakiin waxa la diidan yahay waa maxay waxa la diidan yahay waa in qabiilkaa uu noqdo diin in uu noo noqdo yah diin in uu noo noqdo kan laysku xiriirinaya kan wax laysku siinaya kan laysugu naxariisanayo ya kan shaqada lagu helayo kan dadka lagu soo dhoweynayo ama lagu fogeynayo ya in uu noqdo qabiil qabiilka marka sida khariban sida xun loo isticmaalo maxaa la yiraahdaa qabyaalad waa fahamtay so waxaa la diidan yahay waa maxay waa qabyaalad ee lama diidana in aad qabiilkaaga baratid qabiilka aad baranaysid waxaa ku xiran xiriirkaa ka soke waxaa ku xiran xuquuqyo fara badan iyo waajibaad fara badan xuquuq dadka kuu dhow dhow ee xigtada ah ay kugu yeelanayaan adiguna aad ku yeelanaysid iyo waajibaad kugu fuulaya iyagana ku fuulaya xuquuq iyo waajibaad cibaadadeeniibaa qabiilka ku xiran marba haddii jannadeeni uu ku xiran yahay cibaadadeeniibaa ku xiran soo ma ogid qabiilka taada kale yaad guursanaysaa yaadan guursanaynin yaa maxram kuu ah yaanan ku ahayn maxaa keenaya qabiilkaa keenaya sidoo kale haddii kale oo aadan qaraabi iyo aqooni raxim iyo qabiil habaryartaa iyo eedada ayaad guursanaysaa soo ma ogid iyo walaalaha kalaad guursanaysaa dadkaasaad guursan dembi baa iman marka kow waxaa ku xiran diyadii ayaa ku xiran iyo magtii soo ma ogid haddaad si gefa wax u dishid xoolahaaga laga qaadi maayee waxaa laga qaadayaa magta waa qaraabadaadi iyo ehelkaagii haddaadan aqoonin iyaguna aanay ku aqoonin dee xabis baad ku uraysa oo waa lagu dilayaa soo ma ogid soo noloshaadiibaa qabiil in aad baratid ku xiran qabiilka waxyaabo fara badan ayaa ku xiran xagga inoo dhig marka qabiilka maxaa ilaahay inooga yeelay qabaa'il iyo shucuub waa litacaarafuu marka ma aha waxa lagu kala sareeyo qabiil ma aha waad garatay dadkiina orobo ku koray galbeedka ku koray yaa ee aanan qabiilba rabin ama waalidkood uu ka gaabiyey inay qabiil idin baraan ayaan la hadlayaa qabiilka waxaa ku xiran noloshaada qabiilka waxaa ku xiran waajibaad iyo xuquuq waxaa ku xiran jannadaada waxaa ku xiran badbaadadaada iyo noloshaada qabiilka uu ku xiran yahay kow walaalayaal raalli hada marka waxa la isku xiriiriyey ogow waxa lagu kala sareeyo qabiil ma aha marka qabiil ma aha waxa lagu kala sareeyo qabiil ma aha waxa la isku xaqiro qabiil ma aha marka la isku soo dhaweeyo oo la isku cayriyo qabiil ma aha u kaale marka qabyaalada maxaa keenay ilaahay baad ku dhaariyay dhalinyaro iyo addoommadii allow idaylkiin rag iyo dumar culimo iyo caamo madax iyo shacab idaylkeen kaalaye maxaa keenay maanta in annagoo ilmihii aadam ah annagoo shucuub iyo qabaa'il ah dad iswada dhalay ah aabbo keliya ka soo jeeda iyo hooyo keliya maxaa keenay maanta in qaar naga mid ah la sooco oo la yiraahdo waa liitaan laangaab waaye ya in la yiraahdo maxaa keena oo aynu magacyo xunxun u bixino uurkoodii aanu murug gelino maxaa keenay ilaa qabiilka waa litacaarafu silatu raxim iyo magti iyo guurkii iyo wax walbaa ku xiran xuquuqii waajibaad ayaanu nahay
ayaa ku xiran ayaynu niri ha xuquuqii waajibaad ayuu qabiilku leeyahay laakiin maxaa keenay in lais sooco lais hayb sooco dad walaalaheena inaynu xaqirno inaan dhahno waa gabooye inaan dhahno waa madhibaan waa laga roone waa eyle waa liitaan waa gun oo aan weelashoodii xataa ku cabbin aanan wax ku cunin guryahoodii gelin aynan salaamin ka guursanin yaa oo aanu cayrino uurkoodii murug gelino ka yeelno dad liita ka qaadno kalsoonidii maxaa keenay waxaasoo dhibaato ah yaa keen war ma ilaahay iyo islaam baa dhib wada mise ibliis iyo shayaaiin linsi iyo waljinna garo diinta alle waa taa laakiin diinta ibliiska waa kan waxa dadka aynu ku fogeynay waa diin ibliis iyo caadi ibliis u kaalay xabiibkeeni sala allahu calayhi wasalam haddaad moodaan inaan iska hadlayo oo aan maaragta iska hadaaqayo u kaalay xabiibkaagii sala allahu calayhi wasalam waa ka uu dhahayo arbacun fii ummatii min amri aljaahiliyati laa yatrukuunahuna afar caado afar dhaqan oo xunxun oo ibliisku leeyahay afar caado xunxun ayay ummadaydu ku dhaqantaa oo caadooyinkii iyo dhaqankii iyo diimihii ibliiskee waayadii hore ee jaahiliga yaa uu u jideeyey afar dhaqan oo xunxun oo ah dhaqamadii ibliiska ayay ummadaydu ku dhaqmaysaa kana tegi mayaan wax walboo loo sheego ka tegi mayaan laa yatrukuunahunna ficlu mudaaric ayuu ku cabirayaa waadna garanaysaan ficilka mudaaric dawaam iyo istimraar ayuu faa'ideeyaa wuxuu faa'ideeyaa waa wax joogta ayuu faa'ideeyaa weligood ka tegi mayaan weligood waa yani eed inooga imanaysa xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam wuuna eedeynayaa wuxuu leeyahay ummadayda 23 sano ayaan u daalayey xabiibkaa dhahay sala allahu calayhi wasalam 23 sanaan u ooynayey u dadaalayey u ordayey la ii dhibay la ii ceejiyey mandheer madaxa la iiga saaray aan u dhididayey qoraxi qabow iigu dhacayey u safrayey u dagaalamayey dhiig aan u daadiyey halkaa la iiga jeexay ilig la iiga jebiyey ummaddii aan sidaa ugu dadaalayey aan wax baray mucalimiin iyo shuyuukh aan ka dhigay maantana oo la rabay dhaqankaygii akhlaaqdaydii iyo raxmadaydii iyo wanaagaygii inay qaataan ayaa maanta waxay haystaan yaa afar dhaqan oo caadadii ibliiska ah afar caadooyinka ibliiska ah afar dhaqan oo dhaqanka ibliiska ah yaa ayay maanta haystaan oo ay ku dhaqmaayaan kana tegi mayaan ina lilahi wa ina ilayh dacwadaa eega uu inaga dacwoonaya xabiibka sala allahu calayhi wasalam ya rasuulkii baa naga dacwoonaya maanta sala allahu calayhi wasalam arbacun fii ummatii min amri aljaahiliyati laa yatrukuunahuna mana ka tegayaan waa laba kamidaan rabaa marka mawduuceyga ku saabsan waa alfakru fi alaxsaab waاطacnu fi اlansaab in ay aabbayaal dhinta inay ku faanaan alfakru fi alaxsaab aabbayaal baa lagu faanayaa laandheeranimaa lagu faanayaa culimadii iyo cuqaashii iyo aqoon-yahanadii waxay lamid noqdeen inta badan waxay lamid noqdeen caamadii anagoo ayaa la leeyahay war soomuuna dhihin xabiibka sal alay slam naga mid ma aha qofkii dhaha ana ee mu'miniinta iska saara ya soomuusan dhihin ya naga mid ma aha qofkii ana dhaha soomuuna dhihin sala allahu calayhi wasalam in lagu faano qabiil ya waa tan koowaad caadada ibliis arrinkii jaahiliga ee ibliiska u jiray juhalada waagaanu diintu jirin waxaa kamid ah oo ay umadayduna ku dhaqmayso aanay ka tegaynin in aabbayaal lagu faano in awowyaalo dhintay lagu faano in qabiil lagu faano laandheero layska dhigo laysdaaxuuriyo laysdheeraysiiyo ya cirkaa laysgeeyo sanka kor loo taago iyo waطacnu fi اlansaab dadka kalena la yeesakooda kaagiina inaad sare u yeeshid
kaas kalena in aad yestid adiga ya kaagiina kor baad yeelaysaa kii kalena waad xaqiraysaa ogow ana aad leedahay anagoo reer hebel ah anigoo sidan ah ayaad leedahay kii kale waad yeesaysaa kaagiina waad sarraysiinaysaa waa caado xunxun oo ibliiska rasuulkan uu nagu dacweynayo sala allahu calayhi wasalam ayib u kaale haddana sala allahu calayhi wasalam wuxuu maanta dhaar buu marayaa dadkan la kari la-yuhu u dhaaranayaa ummaddan la kari la-yahay culimadeeda iyo caamadeeduba madaxdeeda iyo shacabkeeduba yaa inta ibliiska raacday ee dhaqanka jaahiliga qaatay buu u dhaaranaya oo muxuu leeyahay layantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aladiina maatuu inamaa hum faxmu jahannam أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي كلهم بنو آدم كل الناس بنو آدم الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب wuxuu leeyahay layantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aladiina maatuu wallaahi way daynayaan wallaahi way ka tegayaan qowmkan ummaddan juhaladan maangaabyadan kuwan yaa xerta ibliis ah yaa kuwan way ka tegayaan aabbayaalo inay ku faanaan awowyaalo inay ku faanaan qabaa'il hore inay ku faanaan dhintay oo aboor wax ka waayey xadiidku muxuu ku yimid gaaladii hore ee juhalada ahaa ayaa waxay ku faani jireen 9 waalid 9 awoowe annagoo reer hebel oo reer hebel oo ay dhihi jireen markaasaa mid 9 ku faanay yaa 9 gaalo ah mid ku faanay yaa ayaa rasuulku wuxuu yidhi sal allahu alayhi wasalam 9kaasna jahanamay ku jiraan adiguna waad tobanaysaa aabba lagu faana awow lagu faana waa kaa yaa ma wax lagu faanaa oday dhintay waayo hore geel badan ayaanu lahayn waxaa ka wanaagsan dameer ayaanu leenahay hadda oo aanu ku shaqaysanaa geel horoo dhintay taajirnimo horoo ku soo martay khayr hore muxuu kuu taraaya haddaad ku faanaysto oo aadan haynin qofka waa inuu ku qancaa xaaladda uu ku sugan yahay rasuulka ayna baraya islaamka ayna baraya xaaladda aynu ku sugannahay waa inaynu ku qanacnaa ilaahay baa noo dooray nolosha